إلهي وحاوه بريايا كوبا قوليستا إنو إلهي كديغو فانفورada إلهي هني غارغارو جهد بان سوغايو مهرسانو مانا هويانو أخرسان كجرنا إلهي هني غارغار غربكيننا على هستاغو هندو جوغا وزيركا كوبا قراي بوواقتا waxaan weydiinaynaa waxaan nahay arday ku dhalatay Muqdisho kuna barbaartay Muqdisho waligood aanin gobol waalidkeenana wuxuu ku dhashay Muqdisho wuxuu ku barbaaray Muqdisho aniga hadda inta taagan hooyaday waxay ka soo baxday iskuul dhagaxtuur waligeed gobol ma aanin meesha igu fogeed aad waxa waaye x sidee ku ogaan karaa eray looga hadlo gobolada waxa halkan ku qoran erayo kala duwan aan ka soo qoray xalay buuga Soomaaliga maalintii ugu horeysay akhri buuga waxay ahayd marka iskuulka waxa la furay 15 Agoosto 15 Agoosto buugaagtan waxa gaday muddo bil ka bacdi 30 biri buugaagta maan arkin waxa arkay eray kala duwan kaal iyo caal iyo caar iyo caban iyo erayadaas aan hadda ma ogaan kari micno uu taagan yahay buugan wuxuu sheegayaa in aan soo raadiyo waana la yaabay hooyaday handaaweediin iyada ma taqaan wiligeedna ma soo arkin buugan wuxuu ii amray in aan qoro wasiirka waxa weydiinaya waxbarashada Allah xafidee buugeena juqraafiga waxa ku qoran xeebta Soomaaliya inay tahay dhirirkeedu 2800 waxsaas galaaska fasalka afraadna waxa ku soo bartay inuu ahay 3333 ayaa ku soo bartay hadana imtixaanka qaranka ku jiro hadii aan arko oo liidaho sheeg xeebta Soomaaliya waa imisa ma fanfaarka waxa ku bartaa sheega mise waxaan sheegaa wixii aan ku bartay fasalkii saddexaad waxa kale oo caqabad aan ahne oo aan ka codsanayna wasiirka kulay anaga waa baxnay fanfaarada naga dambeeyana in loo sameeyo luuqadeena waa luuqad Soomaali waxa wax ku baranana waa af Soomaali waxa ku hadalna waa Soomaali meesha joognana waa Soomaali hadii noola keenay English waxa qaadanaa 12 maado 12 maado laba maado waa Carabi hal maado waa Soomaali inta kale waa English sidee ku baasi karnaa marka luuqadan u dhaleen afaadeen waa aflaagaadeen ka keenta Soomaali ku dhahdeen mudane wasiir sidee ku baranaa af qalaad anagoo joogna dalkeena aan u bixin dibadda ardaya dhacaya asigoo iskuulka ka galay kaalinta koowaad misna markuu galo imtixaanka waxa leeyahay uu dhacay sidoo ku dhacay iskuulka kaalin uu ka galayay waa su'aal xataa hadii nooga soo dari lahay maadooyin diini ah sida tafsiirka axaadiista rasuulka waa ku qanci lahayn ma qaadana hal maado oo waxa qaadana oo tarbiya ah waxa kale oo caqabad weyn tahay waqtiga inuu yar yahay oo iskuulkiina oo noo furmay 15 bisha Agoosto wuxuu furan yahay muddo dhan 162 maalmood waxa noo harayna waa muddo dhan 63 maalmood hadii la isku daro waa 225 maalmood ma ku baran karnaa anagoo arday adan manhajka oo si cusub yahay oo horena arday u soo barin hadii dhihi karna xitaa noo faa'iideeyo waxay ahaaleed waxa u daran maadooyinka calculationka oo u baahan scientificada sida chemistryga xisaabta iyo physics waa 12 chapter waxa laga yaabaa iskuulku uu fog oo wax badan dadaalay inuu marayo chapter 7 hadaa mareys waxa ku haray waa 4 chapter ma ku dhameyn kartaa 63 maalmood oo jimciga khamiis ay ku jiraan anaga iskuulkeena maamuleena Allah u gargaaray wuxuu noo sameeyay 7 maalin waa imaanaa laakiin waa dhibsanaa dhibkeena dheefteeda maalin la heleena maamulkeena sina aad ugu mahadcelinaya waxa codsan lahaa in ardayda naga dambeys kulay anaga waa tagnaa ardayda naga dambeys in loogu soo diro maadooyin diinta ku saabsan si aan u hormarno maadiga midib ku qabanay diinta bidix ku qabanay sidee loo guuleystaa sidee kaalin loo istaagaa aniga hadda hortaagan waxa rajaynayaa inuu Ilaahay cimri iyo nabad igu gaarsiiyo caafimaad 2025 inaan noqdo wasiirka waxbarashada ama wasiirka caafimaadka sidaas nabadgeliyo fanfaarada Ilaahay idin gargaar dhibaan yeeshay